waxaad maqashay miiriye goglaamira ku yaaliina inaad himirta muurmuursato yaad mihindisaysaayo ogaadeenna moohaar ku shubay mohoradiisii iyo mooyaa kaciyey reerahaad magac wadaagteene saddexdeedii naag loogu maray waa madowdahaye in muraayadeedii jabtay ban maragu haystaaye miiskeedu waa inuu carmari magac ku yeeraaye iga maarsoyaan ina calaay kuugu maraqsiin noloshiisii inteedii badnayd gabyaagii caanka ahaa ee cali dhuux la oran jiray waxay wada joogeen mihiye cali ibraahim haweenay iyadana lagu magacaabi jiray qudheedu way gabi jirtay inkastoo aanay wariyayaashu ku guulaysan maansadeedii iyo tii saygeeda inay ina soo wada gaarsiiyaan cali dhuux laftiisuna sida kollow sheekada soo socota aynu ka garan doonno kuma uu dhiirigelin jirin sida la wariyey isaga oo sudcaa dheer ka soo noqday oo reerkiisa caraabo ku yimid ayuu fishay shaah oo aad u jeclaa inay afadiisu si degdeg ah dabka ugu saarto iyaduna marahayga way ka wahsatay ama kama wahsane waxay doonaysay rag uu markaa u waramayay inay cabbaar dhagaha u raariciso dabadeed in loogu dabaaldegi doono wax yar kadibna inta la soo doono 100 halaad iyo banaatiiqba in laga bixin doono waxay tiri caliyow bahday kala cuslaa anigu buurtaase sidaad galab yar ii baacsateen bayraha baan ahay bilaash baad isaga kaya heshay layma baayicin haddii aan u tago reer aabahayga aad igu cabsiinayso ee aad leedahay waxaan masaga ahayn ma haystaanna bal dhowr waxa aan mudan doono baan baa la ii tumi sidii baashi soo degay walaalkayna 100 baad la siin iyo banaatiiqe badbaado allah cali aadanow wasbedel iyaayay waxay ahayd sheeka dhacday xilligii baydida iyo raganimada aan kala dhantaalayn oo cali dhuux ku dhaadanayay kaftan iyo jalbeeb gobonimo barihii ay u banaanaayeen tashigiisu waayihii uu meel mari ogaa fardoolay boqolaala oo isaga uun wax ka maqashaa waayihii ay hareerihiisa tubnaan jireen barwaaqo iyo baydi wuxuu muddo dheer ku jiraba wuxuu cali dhuux soo gaaray sanadihii 20-adii iyo 30-adii qarnigii 20aad xilligaas oo ahaa mid guud ahaanba Soomaalida isbedel waaweyn u siday wax yar ka hor waa xilligii sayid iyo daraawiish la jabiyay oo dabadeed markuu godgalay geyiga oo idil gumaystayaashii uu ka hor joogay ay ku wada fideen wadana qabsadeen waa duni la kala iibsado nala ogeysiine waa markii uu Faarax Nuur ku calaacalay oo xoogag Yurubta galbeed ka yimid iyo xabashidii uu Minalik u talinayay intay saamiga ku dhufteen ay dalka Soodimaha u kala yeesheen taasi markay dhacdayna hubkii iyo saanadii ayaa waxaa laga haqabtiray kii la saayiray dawladihii dalka xooga ku qabsaday kii diidanaa ama uu reerkoodu falaaga qornaana waa laga hor joogsaday miisaankii awoodda tolalku waa xilligii uu sida baan u dheeliyey nin karmeedkii waranka iyo faraska ku ciilbixi jirayna waa xilligii uu salka dhulka ku dhuftay raggii uu xilligaasi sida weyn u saameeyey ayuu cali dhuux ugu horreeyey qof ahaan inkastoo isagu uu sayidka col la ahaa haddana wuxuu gocanayaa boqolaal ay xigaalo ahaayeen oo ku hoobtay dirirtii dheereed ee u dhaxay xoogagii gumaysiga iyo daraawiishtii uu wadaadku hogaamin jiray wuu saboolay markuu dhaci caraabo ku yimid ayuu fishay shaah oo aad u jeclaa inay afadiisu si degdeg ah dabka ugu saarto iyaduna marahayga way ka wahsatay ama kama wahsane waxay doonaysay rag uu markaa u waramayay inay cabbaar dhagaha u raariciso dabadeed intuu ku gartay ayuu indhaha kala hadlay uguna baaqay wuxuu ka sugaayay inay ku dhaqaaqdo iyada oo inta dabkii balbalisay jalamadii oo biyeysan dhaqdhaartii dul saaraysa ayay bilowday tix kaftan ah oo ay cali ku ximaarinayso waxay tiri kaftami maayo cali aadan on koob yar loo shubine kalwin maayo haasaawahe way iskambalayaaye kurka intaanu seef iga jarin maanu kululeeyo shaahii markii la cabbay oo ay labadoodu noqdeen ayuu ku yidhi kol dhow wixii aad tirinaysay bal ku soo celi markaas bay hor iyo horaanba dhagawadanaantiisa la yaabtay ismay lahayn meelisyadii tirada yaraa ee ay guuxa ku tirinaysay ayuu maqli karaa oo cali ma maqlaysay intay tiri ayay 3 meelis ugu celisay iyada oo baraadla oo aan burkaba bira ka filan haddayse la ahayd intuu muusoodo inuu tixda kaftan isaga qaadan doonana mihiye cali way malahabowday maahe showdaraad bay gabyaagiina ka dhaqaaqday wuxuu u qaatay inay ka heelisay raggii ay isu gebi jireen inay u urda bixisay hebeladii badnaa ee colaadda maanse ka dhaxaysay inay u garbaysay bal male siday hebeladaasi haad uga heli lahaayeen hadday tixdeeda markhaati uga dhigtaan daaxuu ka gaashaantay hunguri iyo cunno jacayl inta loogu soo gabado sidii halac dheere in loogu gabiyo maantuu sadabin u galay haddiiba tixda mehiya in abdahaaran
markaas buu ka badin waayey inuu gabiyo inuu maanse wax ku tusaaleeyo gabayadiisa kuwa ugu foolaatan lagu tiriyo mihiyana uu la jeeday ayuu Cali Dhuux maantaana tiriyey si faahfaahsan oo murugaduna ay dhab uga muuqato ayuu tixda ugu qeexayaa dhulkii ay waayay degi jireen iyo qaafadii ay hilbaha ahaayeen geela iyo fardaha tira dhaafka ahayna ay xilyaha uga buuxeen raggaas iyo xoolahaas oo gabaabsi ahaa maalinta uu gabayaayo wuxuu tiiraanyo iyo urgurc ku garwaaqsanaya noloshii milgada lahayd ee uu ku noolaan jiray isaga oo barbar dhigaya midii u dambeysay ee uu barkaa ku jiray wuxuu yiri qurmis iyo qaroor weyne iyo ilaha qaansoole qawdhaha ka baxay tuurwareen qararra baasheeda qaaraha mareerkii lahaa quruxda reen weyne qoda dhagaxlay qooriga hayiyo tuban qalaalkeeda qotankii iyo mayska iyo kobtaan qad ku beeraynay nimankii qusuusida ahaa qoran madaajaane qaandhaawihii kuma lisaan qamaca jilaali qarug buuxa aagaan qafilan qabaxsan maayaane qiyaas caanaheeda oo dhanaan kuma qureecdaane qol dugsoon intay tiibsadaan qabay ma fuudaane qaryad gabar ah qaalida haween lama qadeeyaane jilbad qabax leh qool cadan ka yimi qayla la xideeyay intay qalan magaalo u xiraan kulaba qooqaan qarashaalihii lama dhacaan qirada feernaaye qosolka iyo haasaawihii ku qarxin maayaane dhalinyaro qabiibihii fardaha kuma qaraabtaane sanka qaarar weyn iyo darmaan qooqin mahayaane ashkir qaayib xamar qoorqab iyo qalas ma fuulaane baroor qadan leh ood midabka adqad iyo laas moodo qolqol uma dhisaan geed intay qun ugu waabaane qolku jire qasaaraha rogaal uma qalqaalaane intay qoorta kaga weeciyaan kuma qateeyaane hadba qoro intay weeraraan kagama qayshaane waa lagu quweyn jiray bahday qaadka boolida ee qaankiisa oo tuban haddii la qoriyo waa geele qaynuun ammaan duule iyo qarad ma socdaan markaasuu wuxuu gabaygii ugu dambaysiiyey waana qoto dheer oo mihiye uu dhagaha ugu shubay isaga oo xusuusinaya muddo dheer inay baydi iyo raaxo ku soo noolay wuxuu u sheegay isaga waxa ay ka tabanaysaa inay xagga eebba ku maqan yihiin sidaa darteedna ay ku habboon tahay maqaadiirtiisa intay raalli ku noqoto inay xarigga diintiisa si wacan ugu dhigto wuxuu yidhi naag yahay adduun iga qariban quusna waan ahay qabbaa madaxa kaa buuxa oo waad qaraadhahaye waxaan la qarwayaa leylka dhexe qoomamiya ciile raggii aniga ila qayr ahaa qoladii reer jaamac qormadaad ogeyd baan la shiray amase qoor waaye qabiilkii ku guursaday la mari qoonkii reer golooda maantana qudhayda iyo cabdow qaawan baa haray qalbi haddii aad leedahay asaad qaadan taradayda qaydada ilaahay ku timi qaadir amarkiisa qowlkii rasuulka iyo sharciga ha iskhilaafina ay qaatumadu yay kaa xumaan qirada diimeeda qaybkaagii soo laasataye qaaf ku dhiga looxa waa garwaaqsi waa calaacal asluubaysan waa gabay laga garan karo waayo aragnimadii uu gabyaagu nolosha ka helay iyo sidii ay da'diisu wax u bartay waa gabay inoo muujinaya guud ahaan isla rogidda waayaha aragtidii ay Soomaalidu ka qabtay taasoo ku xiran qallaha eebbe iyo isaga doonistiisa oo qura in wax wale